Bismillahi Raxmaani Raxiim. Cashirkan waxaan ku baranaynaa qaabka data saver-ka off looga dhigo. Data saver-ka waxaa waaye data saver waaye data saver-ka waxaa waaye in datada uu ku dhaqaalayo internet-ka oo kale. Data ayaa lahaa datadaas la isticmaalayo oo isticmaalaysid inuu ku save gareeyo oo maaragtay hababka kale oo kale isticmaalayo oo maaragtay aadan u baahnayn inay kula isticmaalaan kale. Haddaad rabtid waxaad ka dhigaysaa on, kadib hababka kale kulama isticmaali karaan internet-ka sida hotspot-ka oo kale. Marka qaar cilada dhici karta ayaa waxay tahay in qof aad maaragtay aad rabto inuu kula wadaago datadaada ama internet-kaaga oo si uu kugu soo xirmo hotspot ahaan. Marka haddii qofkaas uu kugu soo xirmo data saver-ka uu on ku yahay, qofkaas ma kula isticmaali karo. Waxaa lagu leeyahay on off ka dhig. Marka haddii on uu ku yahay, marka qofka kale isku wareeraysiin wuxuu ku leeyahay aniga datadaada ma kula isticmaali karo. Marka si aan maaragtay off uga dhigno aan u barano cashirkan ayaan ku baranaynaa qaabka off looga dhigo marka iyo on. Marka waxaan tegaynaa settings ayaan tegaynaa. Settings meesha ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. Kadib waxaad tegaysaa connections meesha ku qoran tahay. Kadib waxaad tegaysaa data usage meesha ku qoran tahay. Mobile networks-ka ayay ka hooseysaa. Data usage-ka ayaa click siinaysaa. Waa kana marka data saver mujida data saver waxaa waaye datada maaragtay dhaqaalay off ayuu yahay. Marka haddii aan click siino oo turn on aan dhahno, turn on now haddaan dhahno, waa kaasa on ayuu ku noqonaa. Marka saan ku yahay on uu ku yahay, qofka kale ma kula isticmaali karo datadaada. Hababka kale kulama isticmaali karaan. Datada ayuu ku dhaqaalinaya maadaama datada aad rabtid inaad dhaqaaleysatid, on ayaa ka dhigaysaa. Qof kale kula isticmaalaya malaha. Marka dhibaatada mararka qaar dhici karta waxay tahay qof inaad siiso datadaada inuu kula isticmaalo guri kula joogo kale ama marti ahaato inuu kula isticmaalo kale. Haddaad rabtid inta ayaa off ka dhigaysaa, off ayaa leedahay. Haddii on ku yahay, qofkaas ma kula isticmaali karo. Marka cashirkan maanta waxaan ku baranay sida maaragtay on looga dhigo data saver-ka ama off looga dhigo. Marka intaas ayaa cashirkayga kusoo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.